السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحايد لها ضيو لكن محمد عبد الله ديري أبو شاوي وإنما يوم حاط شيكتين صورنا waxaan doonayaa maanta inaan mawduuc furo oo aan ka hadlo oo aad kala qayb qaadataan ka hadalkiisa iyo baahintiisa iyo socodsiintiisa. mawduucan furaya wuxuu yahay aan jeclahay in xoog looga doodo waxay tahay fanka Soomaalidu ma yahay mid saameyn togan ku leh dhaqanka Soomaaliyeed, ma yahay mid ku beeskaraysan dhaqanka, ma yahay mid ku beeskaraysan hidaha, ma yahay wadaniyada iyo dal jacaylka mid tabinaya. waxaan ognahay fankeenu waayahan dambe inuu noqday hees jacayl ah. heblayo waan ku jeclahay, waan ku dhimanaya, hebel waan ku jeclahay. waxaanu kala ognahay in ummadaha kale fankooda uu ku beeskaraysan dhaqankooda oo uu dhiirigelinayo. dalalka dariska nala ka bilow Ethiopia ka eeg, Kenya ka eeg, bal Hindiya eeg, imse soo dad aragta oo fankooda iyo hidahooda iyo dhaqankooda iyo dharkooda iyo cuntooyinkooda iyo noloshooda ay kusoo bandhigayaan. waa run oo dhawaanahan wax la qabtay way jirtaa oo dhaantada la casriyeeyay baa ka mid ah, laakiin ciyaaraha Soomaalidu dhaanto oo kaliya ma ahayn dee, ma fahanteen? Ethiopia kuwa aswa ciyaarada waa dhaqankooda. hees aan ciyaartaas ku jirna ma jirto. ولو إثيوبيا مخلص تراولي halkaasna waa Kenya, wadiga arka dhaqankoodii iyo hidahoodii. waka Kenyaatiga, welcome to Kenya. adduunyada qaab kale loo dagaalamaya. waxaa lagu barayaa ninka hindigii inuu ka fiican yahay ragga kale. all in all haddaan isku soo wada duubo gundhiga hadalkaygu wuxuu yahay ama biyo dhacaygu wuxuu yahay adduunyada media lagu dagaalamaya. ummad kastaana fankeeda waxay ku iibgeysaa culturekeeda iyo dhaqankeeda iyo qiimaheeda iyo xorriyadeeda iyo aqoonteeda. fankan lagu xumaynayo lagu leeyahay dambi baa ka soo gaaraya. ummadaan fan lahayn ma jirto, waxay kula dagaalamayaan bay qayb ka tahay, hubkay isticmaalayaan weeyaan fanku. horta anigu waxaan ku dhashay dalka Saudi Arabia, magaalada Jidda ayaan ku dhashay. dugsigayga hoose dhexeen halkaasaan ku soo qaatay. waxaan ognahay labada xaram ee shariifeynki ay ku yaalaan dalka Saudi Arabia, Makka iyo Madiina. Saudi Arabia hees calan buu leeyahay, fanaaniin buu leeyahay. markay fan noqoto shirkadda ugu weyn caalamka carabta ee fanaaniinta carabta soo saarta Sacuudiga laga leeyahay, Rotana la yiraahdaa. Rotana waxa iska leh Amir Walid bin Talal, waa amiir Sacuudi ah reer boqora. ay fahanteen? marka fanaaniinta horta waxaan ku boorinayaa war xilkeeda saaran ma aha hees jacayl uu ka weeyaa xilka weyn bay saaran garta xilkeena abwaaniin iyo fanaaniin hadaadiin. dawladaha iyo bulshadana waxaan leeyahay dad garan weydaan waxay ka mudan yihiin abwaaniintiina iyo aqoon-yahankiina iyo fanaaniintiina iyo afmaaladiina idinka hadhi doona. waa runtii Soomaali dagaalka hadday ka qayb qaadan weydo waa laga badin doonaa. waa inta hadalkaygu aad baan idin salaamayaa.